Asalaamu calaykum. Soo dhawaad saaxiibayaal. Maanta waxaan muuqaalkeena uga hadli doonaa taariikhda iyo mustaqbalka ifaayo ee shirkadda filimada dalka Soomaaliya ee Somaliwood. Sidaan ognahay, filimada waa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dunida, taasoo ay ku baxdo wax ka badan balaayiin doolar sanadkii. Sanadihii dambe waxaa aad u soo batay filimada iyo musalsalada ay soo saarayaan shirkadaha Soomaaliyeed, kuwaasoo aan dhihi karno horumar iyo kor u kac aad u weyn bay sameeyeen haddii la dhaho dhanka duubista, qoraalka, editinka iyo directornimadaba. Balse intaan ka hadlin mustaqbalka filimada Soomaaliyeed, aan dib ugu noqono wax ka badan 50 sano. Soomaalida weligoodba waxay ahaayeen dad ku wanaagsan sheeko gudbinta, ayagoo ka soo bilaabay inay geedo hoostood ku gabyaan, ayagoo gabayga fariin ku dhex qarinaya. Sanado kadib, xilligii gumaystihii, dalka Soomaaliya waxaa laga furay shaleemooyin, kuwaasoo badanaa laga soo dayn jiray aflaamta Talyaaniga iyo kuwa Hindiga oo tarjuman. Xilliga gumaystihii waxaa bilowday muuqaalo horumar badan sameeyay, kuwaasoo la magac baxay riwaayado, kuwaasoo daawashadooda loo tagi jiray shaleemooyinka, dadkan ay lacag u bixin jireen si ay u daawadaan. Sanado kadib waxaa bilaabatay in la duubo riwaayadaha, taasoo fududeysay daawashada, joojisayna in riwaayad walba si joogto ah loo jilo. Kadib dagaalkii sokeeye iyo burburkii dowladdii Soomaaliya, waxaa hakad ku imaaday riwaayadihii, balse dad ay ka mid yihiin Allah u naxariistay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis, Ali Hiiraan, Awkuku iyo filim sameeyaal badan ayaa dhididkooda u shubay si ay u badbaadiyaan shirkadda Somaliwood. Inkastoo xilligaas aan heli karin shaleemooyin ay dadka yimaadaan sababo amni dartooda, waxay bilaabeen inay muuqaalada ku duubaan guryo iyo xaafado amnigood uu iska roonaa. Bulshada Soomaaliyeedna waxay awood u lahaayeen inay studio ka soo gataan muuqaalada oo ay moobiiladooda ku daawadaan. Qaar ka mid ah directoradii ugu weynaa ee soo maray dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah Xasan Maxamed Cusmaan, Ibraahim Caawad, Xuseen Mabruuk, Ibraahim Canshuur oo ku magac dheeraa Canshuur, iyo kuwo kaloo fara badan. Filimada ugu magacaaban ee soo saartay shirkadda Somaliwood waxaa ka mid ah Love Doesn't Know Obstacles oo soo baxay sanadii 1961, The Horn of Africa oo isagana soo baxay sanadii 1961, Miyi Magaalo, Dan iyo Xarago, Somali Darwiish, Somali Darwiish 2 oo soo baxay sanadii 1984, Rajo, Xaaskayga Caraweelo, Carara iyo kuwo kaloo fara badan. Run ahaantii filimada ay soo deysay shirkadda Somaliwood waxay ahaayeen kuwa caan ka ah aadna looga daawado qaaradda Afrika. Qaar ka mid ah aktaradii ugu magacaaban ee ka soo muuqday aflaantii hore dalka waxaa ka mid ah Allah u naxariistay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis, Ciise Jawaan, Abdulqaadir Nuuraani, Ali Hiiraan, Awkuku, Fatxiye Saleebaan, Xakiimo Caalin, Jayte, Ilka Case, Maki Xaaji Banaadir, Marshaale, Awdaango, Awkombe, Sooraan Cabdi iyo Sanqoole. Daawada muuqaalkeena heeg waxaan ku faahfaahin doonaa oo aan uga hadli doonaa mustaqbalka ifaayo ee shirkadda Somaliwood. Daawadayaal, intaas ay ku yihiin muuqaalkeena. Haddii aad ka hesho muuqaalka, fadlan like saar, ku soo biiri channelka oo subscribe saar. Mahadsanid.